kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kusoo dhawaada wardheer miidiyaha qodobadeena wararka ugu doorka roonna waxaa ka mid ah Puntland iyo Koonfur Galbeed oo wadahadal uga furmeen magaalada Baydhabo. Madaxweyne Farmaajo oo daaha ka rogay tilmaamaha uu ku soo xushay ra'iisul wasaarihiisa cusub Master Roble. Fadhiisima ay lahaayeen ciidamada sirdoonka Soomaaliya oo duqeymo lala eegtay 8 qodob oo uu sheegay ra'iisul wasaaraha cusub inuu wax ka qaban doono xilli waqtiga uu haystana uu ku yar yahay. Turkiga oo markii ugu horeysay hawada geliyay diyaaradda drone oo xambaarsan rasaasta caqliga leh. Intaasi waa qodobadeena wararka ugu doorka roon. Haatana kusoo dhawaada isagii oo faahfaahsan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo Janay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cali Siciid Fiqi, golayaasha dowladda, saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Baydhabo ayaa Dani iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Shaati Guduud. dowladda Puntland oo xiriir iskaashi la leh dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay Koonfur Galbeedna ka mid tahay, sidaas daraadeedna socdaalka madaxweynaha wuxuu la xiriiraa horumarinta xiriirka iskaashi ee ka dhaxeeya Puntland iyo Koonfur Galbeed. sidaasi waxaa yidhi war ka soo baxay xafiiska madaxweyne Dani. Laftagareen oo soo dhaweynta kadib u waramay warbaahinta ayaa sheegay in wadaxaajoodyadu ay yeelanayaan ay ku xoojinayaan iskaashiga taariikhiga ee ka dhaxeeya labada dowlad goboleed. Madaxweyne Farmaajona waxa uu daaha ka rogay tilmaamaha uu ku soo xushay ra'iisul wasaare Roble. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyay xildhibaanada golaha shacabka kalsoonisiinta iyo ansixinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo uu xilkaasi u magacaabay 17 bishan. madaxweynaha oo la wadaagay xildhibaanada golaha shacabka tilmaamaha uu ku soo xushay ra'iisul wasaare Roble ayaa kula dardaarmay in uu soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka shaqeysa xaqiijinta yididiilada ay ka qabaan shacabka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waa muwaadin Soomaaliyeed oo aqoon-yahana waayo arag ah oo waddaniyadiisuna ay aad u sareyso, waxaana laga rabaa inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo si ambaqaadi karta howlaha muhiimka ee dalka hortabinta u leh, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. codsiga madaxweynaha oo kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha kadib xildhibaanada golaha shacabka waxay yeesheen kulan kale oo gaar ah oo codka kalsoonida ay ku siiyeen ra'iisul wasaaraha iyadoo codeyntana uu dibad joog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo ay xildhibaanadu cod buuxa ku ansixiyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulankii labaad ee golaha shacabka oo uu ku soo biiray waxa uu goobjoog ka ahaa xasaanasiinta ra'iisul wasaaraha cusub mudane Maxamed Xuseen Roble oo xilkaasi u dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed. fariisimo ay lahaayeen ciidamada sirdoonka Soomaaliyana duqeymo ayaa lala beegsaday. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar loo adeegsaday madaafiic oo xalay saq dhexe lagu weeraray ama lagu qaaday fadhiisin ay ciidamada sirdoonka Soomaaliya ku lahaayeen duleedka bari ee magaalada Beledweyne. dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu waramay inay qaadeen weerarka lagu beegsaday fadhiisinkaasi ku dhow xerada Iftiin ee ku taala deegaanka Ceel Jaalle ee gobolka Hiiraan ee hoos tagta maamul goboleedka Hiirshabelle. sida ay xusayaan warbixino dhanka sirdoonka, 3 askari oo ka mid ahaa kuwii ku sugan bartaasi oo ah meel lagu hubiyo gaadiidka ayaa dhaawacyo soo gaadheen. ciidamada Jabuuti ee jooga xerada Iftiin ayaa la soo wariyay inay dhankooda ay hoobiyeyaasha kaga jawaabeen tiro madaafiic kale ah waxyeelana sababay, walow ilaa iyo haatan aan si dhab ah loo xaqiijin karin tirada khasaaraha ka dhashay. saraakiisha dhanka ammaanka ayaa warbaahinta u sheegay inay qaadeen howlgallo ay ku baacsanayaan dableydii falkaasi ka dambeysay. ma jiro war ku saabsan duulaankani oo ka soo baxay dhanka
xoogaga hubeysan ee gacansaarka la leh al-qaacida ee al-shabaab ayaa weerarada madaafiicda kordhisay bilooyinkii lasoo dhaafay iyadoo ka gaabisay qaraxyada gaadiidka oo ay ku beegsato saldhigyada, taasi oo loo aaneeyay howlgalka ciidamada ama agabyari soo wajahday kooxdaasi. 8 qodob ayuu ra-iisul wasaaraha cusub sheegay inuu wax ka qaban doono xilli waqtiga uu haystana uu aad u yaryahay. baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay ra-iisul wasaaraha cusub ee madaxweyne Farmaajo soo xushay. sidaasi daraadeedna Maxamed Xuseen Rooble waa ra-iisul wasaaraha rasmiga ah ee Soomaaliya. Maxamed Xuseen Rooble waxaa laga sugi doonaa inuu soo magacaabo golo wasiiro oo wadankan ka gudbin kara marxaladan kala guurka kadib dhaarintiisa, wuxuuna sheegay inuu wax ka qaban doono 8 qodob isagoo haysta waqti aad u kooban. ra-iisul wasaaraha cusub wuxuu sheegay inuu wax ka qaban doono marka ugu horeysa arrimaha amniga oo ah tan ugu muhiimsan waqtigan in laga shaqeeyo mudan. sidoo kalena qodobada uu wax ka qabanayo waxaa ka mid ah doorashooyinka, iskaashiga caalamiga iyo dib u heshiisiinta. 8 qodob ee Maxamed Xuseen Rooble uu sheegay inuu wax ka qaban doono waxaa ka mid ah arrimaha amniga, doorashooyinka, cadaaladda, horumarinta dhaqaalaha, dib u heshiisiinta, dib u eegista dastuurka, iskaashiga caalamiga, dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. sidoo kale wuxuu ballan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo dalka ka bixisa marxaladan kala guurka ee lagu jiro, taasi oo la fahamsan yahay inay keentay in si aqlabiyad leh lagu meelmariyo. Villa Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay wada dadaalo ay ku wiiqayso guuxa laga soo horjeeda ra-iisul wasaaraha cusub, halka Rooble uu isaga laftigiisu uu kulamo kala gedisan oo gogol xaad ahaa ansixintiisa uu la yeeshay guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka. Rooble ayaa ku soo aadaya xilli uu dalku marayo marxalad xasaasi ah oo mar horseedi gaadhay jahwareer siyaasadeed, hase yeeshee ugu dambeyntii laga gaadhay heshiiska madambeysa oo laga rabo fulintiisa xukuumadda uu soo dhisi doono. ugu dambeyntiina Turkiga ayaa markii ugu horeysay hawada geliyay diyaaradda drone ah oo adeegsan karta rasaasta caqliga leh. diyaaradan drone-ka ah oo joog dhexe ku duulaysa ayuu Turkigu si maxalli ah ugu farsameeyay, waxayna samaysay duulimaad dhan 28 saacadood. drone-kan oo ay samaysay shirkadda TAI-da ayaa xaqiijisay in markii uu drone-kani jooga ku duulayay uu siday rasaas iyo gantaalo ay ku jiraan 12 MAML oo ah rasaasta caqliga leh, wuxuuna hawada ku jiray 28 saacadood ka badan maalin iyo habeenkeed. drone-kan ayaa qaadi kara hub culayskiisu dhan yahay 750 kilogaram, isagoo u adkeysan kara inuu howlgal ka sameeyo meel jirta fogaan dhan 40,000 oo fiid. diyuuradani ayaa tijaabadii middan ka horeysay waxay hawada ku jirtay in ka badan 49 saacadood sida TAI-du ay sheegtay, waxaase markan u dhammaa hubkeedii oo ay ku qaadi karto ilaa 6 qan oo kala duwan. diyaaradani ayaa sidoo kale ah drone-kii ugu horeeyay oo adeegsata rasaasta MK82 oo lagu hago taybarka uu sameeyay Roketsan oo isla Turkiga ah, taasi oo bambooyinka caadiga ah siinaya awood hagitaan oo u rogaysa rasaas caqli leh. guud ahaanba intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkeennii Wardheer Media. ku mahadsanidin la socodkiina.